shirweynaha midnimo ayaa waxa uu galay maalintii saddexaad waxaana maanta kulanka ajandihiisa uu ahaa sidii loo midayn lahaa dadka dego gobolada Jubbooyinka iyo Gedo goobta hoolka ee uu shirka ka dhacayay ayaa aragtidooda anjadaha ku aadan waxa ka dhiibtay dad u fara badan oo siyaasiyiin u badnaa kadib ayaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo ururka haweenka ee gobolka Gedo waxa ay cambaarayeen qaar ka mid ah erga ka soo jeeda Gedo oo gaaray magaalada Kismaayo oo ka qayb galaya xulista baarlamaanka maamulka Jubbaland waxaan filayaa waxa maanta la saddex inoo furan shirkii midnimo ee qaybtiisa koowaad waxaan leenahay dadka uu quseeyo gudaha iyo dibadda meel kasta oo ay joogaan waxaan u direynaa baaq inay ka soo qayb galaan shirka taasi waa diidnay waxaynu rabnaa gobolada Jubbooyinka wax la wada leeyahay oo dadka wada degan ka dhaxeeyo oo aysan qolo gaar ah sheekha ku wadan inay ka soo baxaan goshaana kulligeeda wataayada gabagabadii shirka ayaa waxaa soo xiray shirgudoonka shirka Sheekh Cabdikariin oo sheegay in maalinta berrito ah ajandayaal kale looga hadlo